kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noogala socotaan channelkeena ka wararka waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo caalamka waxaana qayb ka noqon doona warbixin cusub ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadii Soomaalida ahayd ee dalka Eritrea loo qaaday tababar ka ahaan ay caddaatay in ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya isla markaana ay caawiyeen dagaalkii militariga federaalka Itoobiya ay kula galeen jabhada TPLF warbixintaas cusub oo shaaca ka qaadaysa xog fara badan ayaa soo gudbin doona eesha caalamkan waxa ay markaan war la yaab leh ka soo saartay doorashadii ka dhacday Somaliland haddaba maxay ka tiri hal arin ay Somaliland iyo beesha caalamka ay wadaagaan maxay tahay arintaas waan soo gudbin doonaa soo kale waxaad daawan doontaan warar kale ugu waaweyn boqortooyada Sacuudiga iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka wada hadlay arrimo qusay labada dhinac qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kale gobolka geeska fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saar gambalay kana furo wana share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aynu ku bilowno baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ciidamo Soomaali ah oo tababar loogu geeyay dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray waxa ayna ciidamadan Soomaalida ah iyo kuwa Eritrea ay taageereen ciidamada federaalka Itoobiya warbixin qaas ah oo soo saaray baaraha qaaska sidoo kalena ah ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo tababar loo geeyay Eritrea ay ku lug yeesheen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya warbixintii uu soo saaray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidan Soomaali ah laga qaaday xeradii tababarka lana geeyay jidda hore ee dagaalka ee gobolka Tigray ciidamadan Soomaalida ah laga qaaday xeradii lagu tababarayay ayaa uu helinaya ciidamo kale oo ka tirsan militariga dowladda Eritrea oo ka gudbay xadka Itoobiya si ay dagaalka ugu taageeraan ciidamada federaalka Itoobiya warbixintan ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaalida ee dagaalka loo geeyay gobolka Tigray lagu arkay Aqso ee gobolka Tigray ciidamadan ayaana dhinac jooga kuwa kale oo u dhashay dalka Eritrea dowladda federaalka ayaa beenisay ka qayb qaadashada askarta Soomaalida ee dagaalada Tigrayga waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay ka dalbanayaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharaxaad ku saabsan halka ay ku dambeeyaan ciidamadii Soomaalida ahayd ee loo qaaday dalka Eritrea in lagu soo tababaro ergeygaarka waxaa lagu wargeliyay in guddiga arrimaha dibadda ee difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ay u yeeraan madaxda dowladda federaalka si ay ugu diraan Asmara wafdi xaqiiq ra'iis ah oo baaritaan ku sameeya arrintan warbixintan ka soo baxday qaramada midoobay ayaa ku soo aadaysa xilli dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loo geeyay dalka Eritrea la sheegay in qasab lagu geliyay dagaalka gobolka Tigray halkaasna lagu dilay qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo gobolada dalka iyo wiilashooda loo qaaday Eritrea kuwa aan weli aan ka warhayn nolol iyo geeri ayaa marar badan banaanbaxay waaweyn ka dhigay Muqdisho waxa ayna dowladda ay ka dalbadeen in caruurtooda meel loogu sheego haddii ay nool yihiin iyo haddii ay kalaba ay dhinteen maadaama la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea isla markaana la geeyay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayna la dagaalameen jabhadii TPLF ee dagaalka kula jirtay dowladda federaalka Itoobiya iyo militariga dalkaas inta badan shacabka iyo waalidiinta Muqdisho ayaa isweyn ugu argagaxay markii ay maqleen qaar ka mid ah caruurtoodii oo la geeyay gobolka Tigray halkaasna oo ay kaga barbar dagaalameen ciidamadii federaalka Itoobiya ayagoona markaas dagaalka kaga soo horjeeday TPLF ayna Itoobiya ay caawinayeen dhinaca kale intaan ka bixin daawadayaal warar ku saabsan ciidamadii loo qaaday dalka Eritrea isla markaana la sheegay inay ka barbar dagaalameen militariga federaalka Itoobiya ayna markaas dagaal ugu soo wada jeedeen TPLF oo halkaas dagaal culus lagu qaaday waxaa ka hadlay oo maanta shir jareed qabtay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi ahna musharax u taagan xilka qabashada ahna musharax u taagan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu shirkiisa jareed u warbixintii qaramada midoobay ee cadeysay in dhalinyaradii Eritrea loo qaaday lagu arkay goobaha dagaalka ee gobolka Tigray waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markaas shacabka Soomaaliyeed haweeriyay waalidiinta loogana baahan yahay inuu cadeeyo in markaas ay ciidamadii halkaas loo qaaday ay ka dagaalameen dalka Itoobiya isla markaana dagaal ay la galeen jabhada TPLF waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in amarnimo la aqbali karin dhalinyaro Soomaaliyeed inay ka dagaalamaan dalal shisheeye isla markaana lagu marmarsiyoonayo in tababar halkaas loo qaadayo mucaaradkan ayaa sidoo kale ah ninka kaliya ee sida weyn u hadalhaya dhalinta ku saabsan dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea isla markaana ku xun waalidiinta waxyaabaha ay wajahayaan isla markaana dowladda federaalka aysan jawaab cad aysan ka bixin xisbiga wajir uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi ayaana inta badan waxa uu bannaanka keenaa
cadeemaha iyo macluumaadka ku saabsan dhalinyaradan Eritrea loo qaaday isla markaana lagu marmarsiyooday in halkaas lagu soo tababarayo ase yeeshee la ogaaday warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay inay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia qaybihii hore ee janalkeena ka wararka ay daawanaysan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saar gambalka kana furo wala share gaay saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinku markaas commentiga like-na inoo reebaya dhinaca kale wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa si diiran u soo dhaweeyay doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dhawaan ka dhacday maamulka Somaliland ay ku tartameen 3 xisbi warsaxaafid ka soo baxay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Somaliland ay ka dhabaysay ballanqaadkeedii doorashooyinka geedi socodka iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo xaqiijinta dimuqraadiyadda saaxiibada beesha caalamka waxay ugu hambalyeynayaan shacabka Somaliland-ka xisbiyada siyaasadda guddida doorashooyinka qaran iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda sida wanaagsan ay u hirgeliyeen doorashadii baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka iyo habsami socodka doorashada ayaa lagu yiri wararka ka soo baxay beesha caalamka ayaa soo kala sheegtay inay ka xuyeen hoos u dhaca matalaadda haweenka iyagoo ku booriyay maamulka iyo xisbiyada Somaliland ay xaqiijiyaan doorka haweenka ee doorashooyinka Somaliland warka sida wadajirka uu soo baxay midowga Yurub Belgiumka Denmark Finland France Germany Ireland Italy Holland Norway Sweden Switzerland United Kingdom ayaa soo kale lagu sheegay inay sii xoojin doonaan wada shaqeynta kala dhaxaysa Somaliland taas oo u muuqata markaan beesha caalamka tallaabo kale ay u qaadayso arrimaha ku aadan Somaliland iyo aqoonsiga ay raadinayso oo markaas adduunyada kale ay ka raadinayso dowladda federaalka soo ay ka weysay sabiil xajin halkeena ka wararka iyo daawanaysan saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay maamin aad subscribe ka saarto gambalkan afurtaan ula sheegalaysan saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinkoo markaas commentiga like-na inoo reebaya aad bad u mahadsantihiin markaana waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga wafdiga ayaa Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya wasiirka dowladda xafiiska wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa la kulmay wafdiga ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyagoo ku hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal waxay soo kale wasiirka dowladda xafiiska wasaaraha iyo wafdiga Sacuudiga ka wada hadleen dib u furista safaaradda Sacuudiga ee Soomaaliya iyo sidii markaas loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya labada dal Sacuudiga waxaa markaas ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka taageertay dhinacyo fara badan iyadoo hoos u dhigtay markii Soomaaliya xiriir dhow la yeelatay dowladda Qatar oo ay isku xumaadeen dowladda federaalka ee dalka Sacuudiga yaana haatan markaa bilaabaya galaangalkii xoognaa oo ku lahaa arrimaha Soomaaliya iyo doorkiisa ku aadan inuu ka ciyaaro kaalmada kala duwan ee Soomaaliya qaybaha kala duwan ee uu fidiyo dowladda Sacuudiga ayaa la sheegay inay si weyn ay ugu xumaatay galaangalka dowladda Qatar ee ku leedahay Soomaaliya kastoo Soomaaliyana ay markii hore ay sheegtay in Sacuudiga xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo isla markaana xiriirkoodu yahay mid soo jireen ah oo aan marnaba idin ku go'aynin guud ahaan daawadayaal waa inta wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen halkeena ka wararka hilmaameen subscribe ka saartaan gambalka furtaan wala shiragaysan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaa commentiga like-na inoo reebaya aad bad u mahadsantihiin